especially ilmaha markay yar yihiin saan hore u sheegay sanad ilaa 6 sano marka ayay u baahan tahay maskaxdooda in la kobciyo tarbiyo wanaagsan akhlaaq wanaagsan isdhexgal bulsho wanaagsan la tusiyo lagu barbaariyo markaas u baahan yahay ilmaha barbaarinta kali maahan cunugu wuxuu cuno wuxuu xirto email jifta iyo waxa kali maahan way ka weyn tahay xag diiniyan haddii loo fiiriyo xag bulsho haddii loo fiiriyo si walba xataa barbaarinta waa inay ku dhisan tahay jacayl isdhexgal dareen naxariis intaa sheegay bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan asxaabteena sharafta leh kulligiina family friends waxay salaamayaa waxaan la soo dhawaada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan la assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin markaa iga waxaan leeyahay ramadaan mubaarak insha Allah waxaan rajeynayaa caafimaad insha Allah sidoo kale waxaan rajeynayaa Allah nagu bariyo insha Allah ramadaankaas anigu caafimaad qabno insha Allah inuu Allah na gaarsiiyo kulligiina soo dhawaada dadkeena hore noogu xirnaan la joogay kulligiina ku maasantiin la joogiina waa idinka mahadnaqaynaa haddii channelkan ku cusubtahay ama channelkan ku cusubtahay fadlan soo dhawow adigana oo ku jecelnahay kulligiina waa idin jecelnahay calaamada insha Allah subscribe ka hoos calaamada gudaha subscribe ka guji ama riix ama click ku sii sidoo kale beelkina furto waa muhiim si video walba aan soo dhigno insha Allah kugu soo dhac teleefankaaga commenting waa muhiim asiga sidoo kale wuxuu noo yahay dhiirigelin insha Allah video walba aan soo dhigno haddii video ka hesha markaa dhamaystid insha Allah sidoo kale waxaa gujisaa ama click siisaa meesha ku qoran tahay like intaan ku maasantiin haddii intaan kaga gudbo mar labaad mar saddexaadna waa idin salaamayaa videogan waa video muhiim ah wuxuu ku saabsan yahay habka ilmaha loo koriyo ama loo barbaariyo ama habka ugu wanaagsan ilmaha loo koriyo ama loo barbaariyo ama loo kobciyo maskaxdooda marka waxaa suuragal adiga daawanaya inaad tahay aabe inaad tahay hooyo ama in ilmo kula dhashayna suuragal marka inaad videogan dhamaystid waa muhiim adigoo muhiim ku yahay qof walba ayuu muhiim yahay videogan haddii ka hesho insha Allah like saar haddii intaa kaga sii gudbo sidee loo koriyaa ama muxuu yahay korinta ama muxuu yahay barbaarinta ama kobcinta maskaxda ilmaha yar maskaxdooda maxay tahay sababta loo sameynayo barbaarinta kali ma ahan in ilmaha la siiyo cuno waxay cunaan meel ay seexdaan dhar ay xirtaan ma ahan intaa way ka weyn tahay especially cunuga ilmaha markay u dhexeeyaan sanad ilaa 6 sano waxay u baahan yihiin maskaxdooda in la kobciyo ama wax lagu daro maskaxdooda laga dhigaa maskax wanaagsan maskax wanaagsan si wanaagsan u shaqeynayso in laga dhigaa sida loo dhigi karaa waalidka waa ilmihiisa tusiyaa ama ula dhaqmaa si wanaagsan jecel ah dareen sidoo kale inuu tusiyaa inuu waalidka ilmaha jecel yahay waa inuu ilmaha waalidka la saaxiibaa waa inuu waqti geliyaa sidoo kale waa inuu ilmaha waalidka ku dhiirigeliyaa isdhexgal waa inuu tusiyaa sida dadka loola dhaqmo dhaqan wanaagsan dadka kale inuu kula dhaqmo ilmaha sidoo kale markuu waalidka ama aabbaha ama hooyada marka ilmaha eegaysa ama fiirinaysa waa inaad ku fiirisaa indha dabacsan oo jecel ah sidoo kale u muuji naxariis ilmaha marka ilmaha kula hadlayaan waa inaad attention siisaa mar walba cunuga ilmaha waa inaad la ciyaartid waqti gelisaa sidoo kale ilmaha markay wax ku weydiiyaan ay ku yiraahdaan aabba mise hooyo waxaa u baahana shaygan waa inaad mar walba dhihin no waa inaad mar walba ay noqonin jawaabtaada answerka ama jawaabta bixinaysa waa inay tahay mid aad ka fikirtay oo wanaagsan emotionka ama ilmaha aad jawaabta siinaysa wanaagsan ahayn mid asiga dhibaato u keenayso waayo markaa mar walba aad tirahda no asigana beri wuxuu ku dhahayaa no ku dhahayaa markaas aad leedahay cunugii wuxuu yiri no marka maaha inaad tirahda ilmaha inaad ku qaylisid maaha marka cunuga waxa leeya waa inaad u jirtaa aad kala dhicisaa ama tusisaa cunuga wuxuu xaleeyay inay qalad yihiin inuu wax xaleeyay waa inuu sheegtaa cunuga ma inaad iska qaylisid ma inaad dishid ma inaad canaadid inaad go'aan qaadidna waa laga fiican yahay especially ilmaha markay yar yihiin saan hore u sheegay sanad ilaa 6 sano marka ayay u baahan tahay maskaxdooda in la kobciyo tarbiyo wanaagsan akhlaaq wanaagsan isdhexgal bulsho wanaagsan la tusiyo lagu barbaariyo markaas u baahan yahay ilmaha barbaarinta kali maahan cunugu wuxuu cuno wuxuu xirto email jifta iyo waxa kali maahan
way ka weyn tahay xag diiniyan haddii loo fiiriyo xag bulsho haddii loo fiiriyo si walba haata barbaarinta waa inay ku dhisan tahay jecel isdhexgal dareen naxariis intaa sheegaba in ka badanba inay ku dhisan tahay sidoo kale waalidkooda ilmaha geliya waqti at least cunugaaga maalinkii kabad abruna gelisa waa waqtiga la ciyaartid waqtiga wax u sheegtid waa inaad waqti siisaa ilmahaaga cunugaaga waxaa ka dhigta ayuu noqonaya haddii mar walba markuu yaryahay saar u sheegay sanad ama 2 sano ilaa 6 sano intuu dhexeyso tarbiyada ku barbaarisay ayuu markuu 6 sano gaaray iyo baaf inta ka sareyso waxa ku soo barbaarisay ayuu ku dhaqmi doonaa marka haddii aad doonaysid cunugaaga inuu noqdo cunug aqli badan deegan fikir badan oo si fikir sa ka muuqda si u fikir si wanaagsan u fikiraya tixgelin leh jecel dareen leh naxariis badan adiga ku jecel hadal maqla waa inaad adiga marka hore ilmahaaga kala dhacsid intaan sheegay waa inaad adiga tustid wey ilmahaaga adiga u ah role model adiga u ah example qofkay ku dayanayaan ay daawanayaan waa adiga especially waxaa la hadlaya aabayaalka Soomaalida la hadlaya marka waxaad in leeyahay dhamaantiina waxaad tihiin aabayaal wanaagsan laakiinse inay ilmihiina waqti siisaan inay ilmihiina dhex gashaan la ciyaartaan maskaxdooda inay kobcisaan la ciyaarka ilmaha la ciyaaraysid la sheekaysiga u sheekaynta wax walba ilmahaaga la sameynaysid waxay ka mid tahay barbaarintiisa waxay ka mid tahay sida adiga kobcintiisa maskaxda ka mid tahay wax walba ilmahaaga tusid adiga waxa u tahay role model wax walba wanaagsan ilmaha ka arka asigana uu sameynaya marka insha Allah videogan waxaan jeclaan lahaa in inta ku soo koobo video insha Allah ayaan si qoto dheer oo faahfaahsan insha Allah kaga hadli doonaa marka hadii insha Allah videogan aad tayara soo dhigay am videogan inta aan kaga hadlay hadaa fahantay insha Allah ka heshay waxaan jeclaan lahaa in like noo saartid sidoo kale dhamaantiin waxaan leeyahay soo dhawaada waad in jecelnahay saa hore aragteen waxaan u taaganahay aan habeenii dharar u taaganahay waa idinka waxaan u shaqeynaa idinka dhammaan insha Allah haddii aad jeceshiin video khaas ah inaan kaga hadalna haddii noqon lahayd muxaadaradii haddii noqon lahayd wax kale ku saabsan ramadaankii su'aal walba qabtaan commentiga noogu soo qor halkaa nooga dhaaf insha Allah kulligiin waad in jecelnahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalin wanaagsan mise habeen wanaagsan waqtiga ku tahayba sidoo kale waxaan leeyahay ramadaan mubaarak insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله هلوين مركنا بحسوسينا سبسكرايب كنا تاوتيد هلوين سبسكرايب علامة دالك كاقا مغطى مشي قدن جوتشي ريح بس كليكوسي وما سنتين السلام عليكم